Sarkaal u hadlay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in Mareykanku uu dib u eegayo taageerada ay bixiyaan kadib markii ay soo baxday in ciidamada danab oo ay Mareykanku siiyaan tababar iyo taageero ay ka qayb galeen colaadii ka dhacday gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalada Guriceel. Saraakiisha u hadashay safaaradda Mareykanka ayaa warbaahinta u sheegtay in Mareykanku uu ka warhayo wararka sheegaya in ciidamada danab ay ka qayb galeen dagaalka Galmudug ayna arkeen wararka warbaahintu tabisay ee sheegaya in taliya Cabdilatiif Fayfle iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan danab ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay dagaalka. Haddaba gaashaanle sare Axmed Cabdulaahi Sheekh oo ahaa taliyihii hore ee danab ayaa ka hadlay sida uu arko warka safaaradda Mareykanka iyo ku lug lahaanshiyaha ciidamada danab ee dagaalka Guriceel. wax weyn ka dhigan tahay arrinkaas sababta Mareykanka qayb weyn bay ka qayb qaadataa takuleenta iyo xaquuqsiinta ciidanka danab. Dawladda iyo Mareykanka way kala qaybsadaan mushaarka iyo raashinka ciidanka danab, laakiin markii laga soo tago qaybtaas inta kale wixii tababar ah, wixii agab ah, wixii qalab kale ah, sidoo kale gaadiidka sidoo kale Mareykan baa ka taakuleyso dhankaas ciidamada danab. waxa ugu weyn oo taakuleyntan waxaa ka mid ah tababarka iyo korjoogteynta iyo tala bixinta sida joogtada ay u siinayaan ciidamada danab. haba ahaatee hadda inay si maaragtay remotely ay ku bixinayaan sababta way ka tageen oo way ku soo laabtaan si joogto uma joogaan dalka, laakiin qaybtaasa ugu weyn. marka dib u eegistaas hadday sameynayaan dee dabcan wax weyn bay saameynaysaa. waxaan u malaynayaa inay u arkaan heshiiskii hore oo ah in danab loo aasaasay loo tababaray taakuleynta joogtana loo siinayo inay la dagaalaan kooxaha argagixisada sida al-shabaab iyo daacish oo ka falgala dalka. marka maxay dowladda Soomaaliya iyo Mareykanku heshiis kaga yihiin ciidanka danab? ma jiraa waxyaabo ay ku heshiiyeen oo ay ciidankan samayn karaan iyo waxyaabo aanay samayn karin? horta waxyaalaha oo muhiimka mar walba Mareykanka ay sheegaan waxa weeye danab in qaab khaldan loo isticmaalin. runtii heshiiska ka mid ahayd qaab khaldan loo isticmaalo maxaa ka mid ah marka ma ogtahay waa si loo arkay noqon kartaa marka ama way balaaran kartaa ama marka qaab khaldan mar inta badan waxay u fasiraan in arrimo siyaasadeed la gelin danab. sababta ahna aan kuu sheego Falastiin waxa weeye danab waa ciidanka kaliya awal ahaan jiray ka howlgali jiray dalka meel kasta oo la soo dhaweyn jiray. cid oo ka qabtay uqdud ma jirin, danab baa imaatay oo kasoo qayb gashay. ciidamada kale moogtahay marbo waxbaa si jira, laakiin ciidanka waxaa loo arkay ciidan qaran ah, ciidan dhexdhexaad ah, ciidan neutral ah oo shaqo khaas wato, shaqo gaara maaragtay loo igmaday. marka inta badan degmooyinka kala duwan iyo tuulooyinka iyo Soomaaliya oo dhan aad bay u soo dhaweyn jireen danab inay ka howlgalaan meel kasta oo dalka maaragtay. marka arrimahaas baa laga baqayay in haddii qaab siyaasadeed danab loo isticmaalo in aysan neutralitygii marka dhexdhexaadnimadii lumi lahayn. taasaa laga baqaya marka. marka hadda waxay ka qayb galeen dagaalkii Galmudug oo ah waxyaabaha hadda keenaya in Mareykanku ay dhahaan dib u eegistaan ku sameynayna. yay amarka ka qaataan ciidanka oo awood u leh inay dagaal geliyaan? walaal horta waa ciidankan waa ciidan Soomaaliyeed, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka tirsan yihiin. laakiin waxaa muhiim ah dee fiiri maxay ku xiran tahay madaxda dalka sida u isticmaalayaan. marka madaxda dalka haddee maaragtay macnaha qorshooyin guracan leeyihiin si qaab khaldan way u isticmaali karaan ciidankaas. taasaa laga digayay marka. laakiin ciidankan de waa ciidan Soomaaliyeed, hoggaanka dalku hoos tagaya, taliyaha ciidanka xoogga dalka xukumo, wasaaradda gaashaandhigga hoos tagaan. saas oo kale janjartaas way hierarchiga iyo kala dambeynta saas uu yahay. laakiin maadaama oo ciidankan uu maaragtay taakuleen iyo tababar iyo ka helayo waddan kale oo shisheeya, dee waxay leeyihiin inay kole talada wax ku leeyihiin.
wasaaradda gaashaandhigga ma isleedahay waa ay wargelisay maraykanka markii ay howlgalka ka qayb qaadanayeen galmudug? horta ciidanka de maraykankana marmar iyaga howlgalo diyaariyo oo maaragtay loo diyaar garoobo oo tababarkaas ay qaataan kadibna dawladda ay wargeliyaan oo dhahayaan mar kasta ma ogtahay howlgelinta ciidankan waxaa iska leh dee awooddaas waxaa iska leh ciidanka Soomaaliya. Marka hoggaan talis gaar ee leedahay danab taliya leedahay taliyahaas maaragtay kala hadlaan qorshooyinka. marka way dhacdaa mara badan in dawladdii oo kala hadashay maraykanka inay waxyaalo qaar inay isticmaalaan sida oo kale tusaale oo kale waardiye inay noqonayaan oo kale qof madax meel hadduu aadayo madax sare inay ka qayb qaataan ilaalintiisa macnaha securitygiisa ee ka qayb qaataan. taasoo kale awal waa la weydiin jiray maraykanka. runtiina way dhihi jireen ciidankan dee ciidamo badan kala baa jiro oo loo isticmaali karo. ciidankan waxay mar walba maaragtay ku dhiirigelin jireen dawladda inay ciidankan aad u tababaran yihiin, aad u qalabaysan yihiin, lagu talagalana inay shabaab dalka ka cirib tiraan. in maaragtay maadaama cadowgaas uu hadda aad maaragtay dalka dhan ku teedsan yahay, ciidankan lagu isticmaalo arrimahaas. marka markasta maraykan taas way ka digi jireen. dabcan de maadaama ay macnaha dhaqaalo badan ay geliyeen tababarkan ay bixiyeen heshiisna uu salka u yahay, dabcan de waxay aaminsan yihiin inay talada wax ku leeyihiin. waxaa dhici karta maraykanka inay haddii taakuleenta la noqdaan ciidan Soomaaliyeed ay noqonayaan awalna way ahaayeen, laakiin hadda waxaa keliya go-ayso talada ay ku lahayd maraykanka. dhankan kalena maxaa ka go-ayso dee taakuleenta ay bixin jireen. marka taas waa in la isbarbar dhigo ciidankan ma sii joogi karaa, ma sii howlgeli karaa taakuleenta maraykanka haddii la noqdaan.